السلام عليكم أصحابي جنالكي كحرنا أصحابتي سيتهين سيكو بردين سيكو هرقشين أصحابتي وادي السلام يا سلام قالي حودي سو مرينيا إيسو دوادا أصحابتي إذا جنالك هتاكو عصب تاي فلن سبسكرايب صار هدا سو لابنيسي سو لابشو عن باش إبرواقا كو رجينا يعمل كستاديو ذيكو جوكتيد محلاها فيديو عن هدا فرستي أو فرستيد أو معادة ميستيد لايك صار لايك تأقدر ردام كو إيسي في حنيني صفدت بدن أي فرصدان ومahadsantahay sidback relax maanta waxa falaqeynaa wiil Soomaali walaalkeena waxaaskiisa ku dhex furay TikTok video musqul dhaxdeeda asagoo ku jiro ayuu xaaskiisa furay furitaan u diray asxaabay horta maxallahay qofka bini aadanka anaga hadda waxaan leenahay one brain hal maskaxaan leenahay hal qalbiyaan leenahay qalbigaas qofka bini aadanka haduu buuq ka bato mashquulka ka bato isla hadalka bato oo qofka la dhibaateeyo waxa la dheriga maxaa ka keen kuleelka waa uu dhaaw qarxaya ma fahanti wiilkan si la sheegayo waxa la hay gabadhan way wada joogeen maxallahay TikTok xataa live dhowr jeer isla soo galeen asi gabadha waxa la hay wiilkan gabadhan wuxuu marka istireenays fahmi waayeen in laba qof bini aadan waxa waaye ma ogtahay oo nolol wadaagay oo kala background soo koray anaga ma fahano Soomaalida aan xataa kuriimada different dadka labada meel soo kala koro xataa waxa uu sameeyay xataa laba gobol soo kala koro waxa uu sameeyay maxallahay different perspective on things sida aad wax arkaysa qof kale uma arkaayo xataa laba guri xataa marka qof soo kala kortaan xataa saas waa marka maxalla isfahankana waxa waayay labada qof waqti qaadataa dulqaaday qaadataa understanding qofka inuu fikri qaadataa marka haduu qofku uu maxallahay fikreenin oo maxallahay maskaxdiisa dejineenin uu dhayn what's going on maxaani xaajiga isku dagaalanaa maxaa isku haysanaa qofka haduu waxa iska fikreenin problematic uu si badanayaa ma fahantay badanaana Soomaalida guurkooda waxaa muddaa hadda sanadan la soo dhaafay maxallahay qof kasta qof kale inuu maxallahay cadawba uu arkaba qofka xaaskaaga waa maxaajida waa maxaajigaaga waaye at the same time waa iska sii takooreysa noloshiisna kuma fiicno laakiin maxallahay shakada ku sii socono marka wiilka waxa lahay caruur bay u haysaa cunug bay u haysaa marka isdireen way ka diiday cunuga inay tusto marka baay cunugii tusay cunugiga raba in arka aabo waa moogtahay oo wax dhalay waa waalid waaye maxalla anaga Soomaalida aan u maleynaa aabooyinka ilmooda inay jecel yihiin laakiin aad bay u jecel wiilasha Soomaalida caruurtooda dumarka badanaa I feel like inay dhibaateeyaan wallahi bilaa dumar waxaas iska daaya hadaa nin kala tagtaan ama ninka istagaashaan ma aha ninkii caruurtiis inay istagaaleen ama wiilkii caruurtiis inay istagaaleen duuro cunugiis inuu arko xataa daaribin xataa gurigaaga inaa keentid banaanka ku ballamay kartaa ama waxa dhigi kartaa macallin hebel oo ima cunugaaga ka xisaab dhigi kartaa wiilasha caruurta lagu dhibaateenayo ka dhaafa wiilkana heer wuxuu gaaray I think isla hadlay maskaxda bini aadanka walaal saa uma leenaysi ma maskaxda bini aadanka waa very maxallahay waa wax yar waaye xanuunyaha qaarkooda murugada qaarkooda iyo hadalka badan qaarkooda ma u fiicno way bari gareysaa qofka bini aadanka maskaxdiisa wiilkan waxa la marbo wuxuu imaaday maxallahay TikTok asagoo masquul ku jiro gabadha furay haddana way u ahaan weysaa mar labaad uu imaaday gabadha picturekeedu soo saaray haddana wuu furay markii dadkii ay wada qabsatay marka dhageyso video ahaya araba inaan wada fiirsano insha Allah gabadhan Zainab waa she's very funny waan jeclaa videodeeda soo deysay aan fiirsanayna wax yar ka fiirsanayna insha Allah wiilkaasi gabadhaas uu qabay qurbaha lagu wada nool yahay ilmihii bay u diidasho inay tusiso oo waxay ku xidhay warqadaydii isii iyo meherkaygii kadib ilmahaaga wad arkaysaa isaguna wuxuu taagan yahay maqaanti yaa ka noqonaya haddaan ku furo inaad ilmahayga i tusayso horta i tusi kadib baan ku furayaa isjiijiid kadib wiilkii way sahayn waaye TikTok tu soo fadhiista suuli dhexdii buu gabadhii ku dhex furay annagina maqaanti buu nooga dhigay
waa furiinka ugu horeeyay annaga iyo kuwii Soomaalida ahaa aanu maqaanti ka noqono maqaanti cad baan la ka dhigay oo suulu dhexdiisa shower isagoo shower ban hadda ka soo baxay suuliga dhexdiisaan joogaa hebel way iga furantay hadii saddex bay iga furantay hadii la diido laba hadii la diido hal iyo jab hadii la diido hal annaga ba maqaantiga waxaan maqli jiray furiinku markuu dhaco hebelaaye ninku yuu ka hor qubaysanay dabuur buu noqonayaa isagu dabuurka uu noqdo qubayso isagu shower intuusan furin buuba shower sii hor qaatayba waa cilmi kale maqaantiyaa la isoran jiray keena oo markii la isfuro maqaantiya anagii buu nooga dhigay iyo suuligii iyo shaytaankii iyo xaarkii iyo kaadidii buu maqaanti nooga dhigay raxmo axmed cabdi waxaa ku furan tahay 3 dalaaqo diinta islaamka deedeedan 2 dalaaqo ku furan tahay waa ku furay sixirka ay weystan caawa ayaa u dhamaatay musqusha dhexdan ugu furay waa la furan tahay mar dambe anigana kuma qabe adigana ninkaaga mihi cunugii aydiida 5 bilood adeegaysatana hayso qof suule kasoo dhax furaay gabar nolol wadaageen oo maxaa la ahay si sharaf isku guursadeen caruur u dhashay walaa inuu jiro maleynay maxaa la stress buuqi qeylid la awligeed inuu saas sameeyay ani u maleeyaa ala kulli xaal kulli ani wiilkaan waxaan ilaa walaalkeyga ah wuxuu sameeyay waxa laga yaabaa stress inay ka keentay apology ka soo bixiyo hadaas duu furayna si wanaagsan oo sharaf leh ka war Soomaaliyeed waaye ha u furo maxaa kulli sharaf laha lagu siiyo loogu daray qofka marka guursanaysid meel banaan iskama soo qaadatid dad baa walaayadeeda haayo dad baa walaalaheeda dad baa ehelkeeda dad baa qaraabadeedu ku siinayo wadaad baa kugu meherinayo marka wadooyin waxaa jira furtiinka loo maro oo jiro inuu soo maraa rajaynaya insha Allah wixii xaqeedana uu siiyo insha Allah gabadhaan waxaan ilaa baayo caruurta aabahooda looma diido caruurtiisa tusi maxaa lahaay ha arko ilmihiisa insha Allah xaquuq buu u leeyahay kulli waxay joogaan Kanadana waxay leedahay sharci hadduu maxkamadaas tago maxkamadda wax xaquuq soo saarayso insha Allah marka asxaabta waa idin salaamaya khayr aad rajaynaya salaam calaykum